waxaan u baxaynaa magaalada Hargeysa iyo waliba dhinacaas iyo Somaliland waa wadan runtii aad adduunka magac iyo maamuus ugu leh. Somaliland waxay gaadhay meel aanay gaadhin 22ka wadan ee Carbeed marka laga hadlayo dhinaca xorriyadda siyaasadda iyo waliba dimuqraadiyadda ku dhisan. waxaana gacmaha shacabka reer Somaliland ku jira waxay u mudaharaadayeen malaayiinka Carbeed ee sida xorriyad darrada ah. halkani waxa weeye magaalada Jigjiga marka laga yimaado waxaan ku sii dhownahay magaalada Wajaale. waxaan ku soconaa Somaliland waxaan doonaynaa inaanu kala kulanno waxna farxad geliya balse waaban arkin waxaynu kala kulanno magaalada Hargeysa iyo caasimadda Somaliland. diridhaba Somaliland ugu dambeyn waanu soo gaarnay xuduudka Somaliland iyo Ethiopia waana magaalada Wajaale. magaalada Wajaale waxa ay leedahay immigration lagu baaro dadka isla markaasina waxa jira fiisayaal halka laga soo gelayo Somaliland. waxa ay leedahay inaad Somaliland aad si toos ah u soo gasho. waanu soo lugaynay suuqa bartankiisa anagoo u soo gudbina xuduudka Somaliland. waxaan doonaynay inaanu kamira dhalino socdaalka iyaga dheera ayaan ka soo bilownay magaalada dalkaasi Sweden magaalada Stockholm. arki doonaa waxaanu kala kulanno Ethiopia waanu soo marnay. halkan waa laanta socdaalka ee Somaliland. Somaliland waxay caan ku tahay xoolaha nool oo runtii aad ay geeska Afrika caan uga tahay iyadoo Ilaahay ku manaystay waati walaalayaal aad mahadsantii barnaamijka halkaasan ka wadin share gareeya la wadaaga asxaabtiina. barnaamijkan waxaan doonaynaa inaan ugu horgalno isla markaasina ku soo bandhigno xaqiiqda dhabta ah ee ku salaysan yahay. Somaliland waxa caan ay ku tahay in dadka jooga ay qaadka cunaan. qaadku waxa uu ka yimaadaa dalkaasi Ethiopia. sidaas darteed anaguna inaan la jaan qaadno ayaan isku dayin. waan soo galay ugu dambeyn magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. waxay noo tahay farxad inaanu magaalada soo gaarno balse markiiba waxaan aragnay dhalinyaro aad u firfircoon oo mid walba isku dayaya inuu waqti kula qaato misana farxadii ka muuqato. waxay noo sheegeen waayeelku iyo waxgaradka aan kula kulanay seylada xoolaha lagu kala iibsado magaalada Hargeysa inay halkani tahay halka kaliya ee xoolaha Somaliland caasimadda marka la yimaado lagu kala iibsado. waa waxna farxad geliyay inaanu aragnay askar goobta joogta balse ammaankayagu uu yahay mid ay shacabku sugayaan. tan iyo markii aan noloshayda aan ku fikiray inaan wadamada qaarkood u baxo isla markaasina ka soo diyaariyo barnaamijyo aan ugu khurgalayo xaaladaha dhabta ah ama la soo ogaanayno waxa ka jira magaalooyinka waaweyn ee geeska Afrika ku yaala. waa markii koobaad ee aan imaado Somaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa. caasimadda Hargeysa waa magaalo aad uga qurux badan guud ahaan caasimadaha geeska Afrika. waxa ay leedahay goobo taariikhi ah waxaana sidoo kale ay tahay caasimad ay xareeyeen buuro isla markaasina siyaabo kala jaad ah marka aad dusheeda joogto kugu muuqanaysa. waxaan imika ku soconaa buurta loo yaqaano Naasa Hablood. buurta Naasa Hablood waxay ku taalaa magaalada Hargeysa duleedkeeda. waa tan Naasa Hablood. waa wax runtii aad iyo aad markii koobaad ee aan arko buur noocan oo kale ah. taariikhda hore umay dhicin inaan arko waxyaabo sidan oo kale taariikhiyan aan la taaban oo aan dhul iyo wax weeye waxba loo bedelan. aniga waxaan ku faraxsanahay inaan imi Hargeysa. haddana waad arkaysaan si toos ah ayaan waxaan ugu dhaafay buurta Naasa Hablood. dusheeda ayaan fuulin waxaan idin soo gudbin barnaamijyo gaar ah anoo magaalada ku soo noqon balse ayna ogaano
xaqiiqda dhabta ay ku salaysan tahay buurtani buurta dhekadeeda ayaynu u bixin waxaynan soo gudbin maxaa buurtani xaqiiqadeedu tahay safarkayga tan iyo markii aan ku tegay wadamada qaarkood sida Hindiya Nabel iyo waliba wadanka South Sudan muhiimadeedu waxay ahayd inaan adduun weynaha dusno wadamadaasi waxyaabaha ay qaniga ku yihiin balse tan iyo intaan wadamadaasi soo marayay sidoo kale sida Ethiopia oo aan ka soo degay oo aan idin soo dusan doono goboladooda oo dhan waxyaabaha aan Somaliland ku aragnay waxay noqdeen wax aan runtii aad ugu faraxnay halkan aan saaranay waa buurtana sahablo dekadeeda waxaan ku qaadanayaa jawi midkii ugu wanaagsanaa noloshayda ay aan qaato wax askar ah oo na ilaalinaysa ma jirto wax ciidan ah oo aan wax weeye wadanaana ma jirto waxay noo tahay farxad inaanu Somaliland iyo waliba geeska Afrika anigu waxaan u arkaa shakhsiyan in Somaliland ay tahay sharafta ugu weyn ee geeska Afrika ma aha maanta Somaliland midii bari lahayd ictiraaf guud iyo mid gaarba waad arkaysaan guud ahaanteeda waxaan nahay dad ka yimi wadamada shisheeye balse waxaan si xorriyada uga deganaa buurtani anagu oo aan ka baqayn waxba balse aan ka baqayno kaliya inaanu siibano oo aan buurta ka siibano ma dhacda mise ma dhici doontaa dalka Soomaaliya ee Somaliland ka gooday in lagu arko dad cadaan ah oo buurahan dhekadooda sidan u saarsaaran isla markaasina si xorriyada uga degaya waa ma yaba ila tahay sida daraaddeed Somaliland xaqiiqdu waxay tahay inay xorriyadeedu ay tahay mid taab gashay halkan waxa weeye magaalada Hargeysa ku soo laabtay meeshan adarkasan waa diyaarad rusheysay intay ka kacday magaalada Hargeysa sida la sheegay oo waxyaabaha runtii isirnimo nacaybka ah waliba xasuuqii loo geystay bulshada reer Somaliland waan ka xumahay waxyaabaha noocan oo kale inay ka dhacaan geeska Afrika balse taariikhdu wax walba way qortaa midana waa mid kamida taariikhaha ugu madmadow ee Somaliland soo maray dhalinyarta reer Somaliland waa qaar firfircoon isla markaasina sida ay ugu hadlayaan language-ka Ingiriisiga iyo waliba Carabiga waxay ku tusaysaa Somaliland inay tahay wadan aad iyo aad uga duwan Soomaaliya I was told about the memorial and how the Somali Air Force plane had crashed nearby and was put here, dedicated to the 50,000 casualties of the attacks on Hargeisa in 1988 by Siad Barre. The president of 1998 is Somalia, which is called Siad Barre, bombing air by. tani waa diyaarad ka mid ah xasuusaha uu nagu reebay kaliya taliyihii macangaga ahaa ee aanu ciilka iyo waliba u qabno inaanu marun la xisaabtano dadkani ma ilaawi doonaan Soomaaliya wixii ay soo martay Somaliland imika waxay ku dhowdahay in 18 May loo dabaaldego balse waxay xaqiiqadu tahay inaan marnaba ilmaami doonin waxyaabihii wadanka Soomaaliya uu noo geystay tan iyo markii aan kula ambarnay xorriyadeedii aan gaarka u qaadanay anagoo ah wadan jaar ah ay yihiin balse waxaanu doonaynay aan ka duulanay ayaa ahaa inaanu noqono wadan isku tursan oo la yiraahdo Soomaali weyn taasina waxay noqotay hal bacaad lagu lisay broadcast and journalists so thank you if you come now and going to tell the world how this happens. sida darkaysan shacabka reer Somaliland waa qaar ku faraxsan inay xorriyad gaar ah iyo waliba wadan gaar ah oo runtii ka qurux badan wadamo fara badan oo geeska Afrika ku yaala ay haystaan Somaliland dadkeedu waa dad 100% Islaam ah waa dad diinta Islaamka aad u jecel waxay ku sheegayaan marka la kulanto inay meelaha qaarkood don't go out at night, so I'm not sure really how to feel about that because it seems okay now, but I guess you don't want to tempt fate. So this is the city, and it's nice, safe here up on the roof. This is the hotel that we're staying. hagaag Somaliland waxa ay gaadhay meel aanay gaadhin 22 wadan ee Carbeed marka laga hadlayo dhinaca xorriyadda siyaasadda iyo waliba dimuqraadiyadda ku dhisan qaynuunka waxaana gacmaha shacabka reer Somaliland ku jira waxa ay u mudaharaadayeen
malaayiinka carabeed sida xorriyadda cibaadada iyo weliba in qof kastaaba uu dooro karo qofku doono isagana la dooro karo waana midda Somaliland ay ilaa imika tahay mid ay hore ugu dhaqaaqday Somaliland waxay noqotay marinka dimuqraadiyadeed ee ka soo gashay kana fiday qaaradda Afrika waxay noqotay meel ku dayasho mudan waxa la oran karaa hadii wadamada qaarkood ay dunida ku haystaan awoodaha loo yaqaano vetoga amaba qaar kalena ay ku haystaan horumarka warshadaha ee gaadheen sida wadamada G20 loo yaqaano dalalka kale ay ka kobcayaan dhaqaalahooda isu soo taraya kuna doonaya inay kula wareegaan hogaaminta caalamka ee mustaqbalka dhow sida China, Turkey, Indonesia, Russia iyo waliba Malaysia, Brazil ha ka reebin sidoo kalena ay jiraan wadamo shidaalkoodu cunaha ku qabta caalamka oo dhan sida Iran, Saudi Arabia, Nigeria, Venezuela iyo markale Ruushkana ha ka reebin Somaliland maxay hadaba tahay maxayse ay ku faanaysaa dhankeedu Somaliland waxay ku faanaysaa dunida gaar ahaan qaaradda madow waxay ku hogaaminaysaa nidaamka dimuqraadiyadeed ee ay ku tallaabsatay waxaanay tartanka finalka ah kula jirtaa oo isla markaasina Somaliland doonaysaa inay kaga badiso wadanka Ghana oo runtii isaguna wax badan qabsaday Somaliland waxay ka qayb qaadatay hawlaha gobolka ka jira sida dagaalkii budhcadbadeeda ha ka tegin sidoo kale Somaliland waxay xubin sharafeed ka heshay ururada gobolka loo yaqaano IGAD baarlamaanka Somaliland waxay xubno joogto ah u diraan isla markaasina uga qayb galaan shirarka baarlamaanka adduunka kuwa heerka qaran iyo waliba kuwa heerka gobol Somaliland faraha kama ilaaban arrimaha dibadeed balse waxay door ku leedahay heshiiskii mandaqada qiimaha weyn ugu fadhiyay ee ay wada galeen 80% ururka ONLF iyo dawladda Ethiopia waa wax lagu farxo Somaliland markaan ka hadlano horumarkeeda inaan noqon mid ka xun oo hoos u foorasada halkani waxa weeye magaalada Berbera So I don't know how well you can hear me, but we've made it to the Gulf of Aden now. This is the very last point on the trip. A town called Berbera, with these shipwrecks here from the Somali War, the Civil War. Left all this stuff behind. Very windy. واتهاي halkan waxaad arkaysaan waa xeebta Berbera waa goobta loo yaqaano adigu maxaad ka aaminsan tahay magaalada Berbera oo ku taala Somaliland waxaan aaminsanahay inay tahay meel Ilaahay ugu deeqay shacabka reer Somaliland waa meel hadaanu nahay intaas oo milyan oo Ethiopian ah aanan haysan waxaan aad ugu faraxsanahay inay tahay marin istaraatiiji ah oo guud ahaan adduunka oo dhan indhaha ku hayo Somaliland waxa ay la jaartahay wadamo fara badan oo aan bad lahayn balse waxa runtii Somaliland hadda waxaan isku dayi doonaa inaan xeebtan batala leh ee magaalada Berbera si xorriyada ugu dabaasho ma dhici kartaa mise ma dhacda in xeebta magaalada Lido ee magaalada Muqdisho sidan oo kale adigoo xorriyadaada haysta misana aan cid kula socon inaad ugu dabaalato oo wax isweydiin mudan balse xaqiirin Somaliland waxay qabsatay waa wax ka wanaagsan waxa Soomaaliya aanay qabsan manacin mana diidani Soomaaliya waxaan u rajaynayaa nabad iyo nagaasho balse ha noqdaan kuwa ka kora inay Somaliland xaqiraan Somaliland indhaha adduunka oo dhan baa ku soo jeestay waxaan u rajaynayaa in Somaliland marun hesho ictiraaf anigu safarkayga umaan iman inaan Somaliland ku amaano amaba Somaliland aan kaga hadlo sorry
fadlan share gareey barnaamijka waxay idin la socodsiinayaan anigoo Idris Maxamed Dabshid barnaamijka bogeyga Facebook ayaan ku turjuminay halkani waa xeebta berbera gaar ahaan magaalada Batalaale ha moogaanin inaad xafladaha ay TV timaado sidaasi waxaan kaga laabtay airportka magaalada Somaliland to Ethiopia from Sweden from UK sidaasi safarkaygii ayuu ku soo gabagaboobay balse runtu waxay tahay Somaliland maxaan ku soo arkay Somaliland waxaan ku soo arkay waxaan indhaha laga qarsan karin caalamka oo dhan waa uu soo jihaystay waxaan u rajaynaynaa inay mustaqbalka ka gaadho horumar aan dib idigu celiyo filimkan waan ugu tala galay ma aha filimkani midkii koobaad ee aan ku tago wadamada geeska Afrika waxa iga ahayd inaan wadamo fara badan ku tago sidaan hore ugu sheegnay barnaamijka aan dib idii xasuusiyo keligii taliyihii macangaga ahaa ee Siyaad Barre Somaliland muxuu soo maray Many areas the national media cover pirates, extremist terrorism, famine and war. Sadly, for much of the country, unrest is still present, including in the capital Mogadishu. So wax laga xumaado maaha dadka aad wajiyadooda arkaysa waa dadkii Siyaad Barre sida macangaga ahaa ula dhaqmay waa dad reer Somaliland ah waa dad markii horeba ahaa dal la midoobay Soomaaliya inta kale balse ilaa imika ma muuqato wax xitaa ay qirayaan koonfurta Soomaaliya laakiin annagu waxaan ku faraxsanahay Somaliland inay majaraha u hayso dhinac kasta oo nabadgeliyo iyo waliba inay noqoto goob runtii mandaqada geeska Afrika ku noqota goob taariikhi ah Researching ways to get there, I found a UK-based tour operator. aan dib idigu celiyo dalka Ethiopia intaan ka soo degay iyo Somaliland maxaa u dhaxeeya runtu waxay tahay anigu Ethiopia waanan ka soo degay waanan ka sii dhoofay balse xaqiiqadu waxay tahay runta in la sheego Somaliland Ethiopia wax badan ayay kaga wanaagsan tahay si degdeg ah ayaan dharkayga u qaatay waxaan ka duulay magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden Manchester Airport. ugu horreyn anigu Manchester ka soo baxaya And it's begun to snow as well, so not great at the minute. We're hoping we're going to get there on time. We've given ourselves plenty of room. This is Joe who's given me a lift to Manchester. Thanks very much, Joe. So hopefully we should be there soon. So it's all good. We've made it to the airport with time to spare, and next stop is Sweden. awatay waxaad arkaysaan inaan UK ka imi anigoo Sweden soo kicitimay muhiimadeedu waxay ahayd inaan Somaliland tago balse We've got 5 hours laying over here before we catch the flight to Addis Ababa. So, time for a beer, I think. diyaaraddu markay la soo caga dhigatay magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia Roof conducted the fire. Stopped probably not even halfway, probably not even quarter of the way. xaqiiqadu waxay salka ku haysaa isla markaasina runtu tahay Ethiopia waa meel aad u qurux badan waa dal ku talaabsaday horumar balse waa dal xorriyada Somaliland dadka ku nool aanay haysan oo kale aanad haysan waxyaabaha aan ku arkay waxa kamid ah inaanad sidaa doonto wax u duuba karin oo ah mid runtii kugu qarsoodiya amaba kugu dhibaato ah shacabku ma haystaan xorriyad kama hadli karaan siyaasad kama doodi karaan yaa mustaqbalka guuleysanaya siyaasad ku soo bixin balse muhiimadu waxay tahay Somaliland sidaas oo dhan ma About 8 hours to get here, so it wasn't ridiculous long time, but it was really nice to see a bit of Africa on the way, and we went through some villages, and again all the celebrations were going on and stuff. But it was great to get out of Addis and see a little bit of the real countryside of Ethiopia. So we're here.